الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى darsigeeni ahaa shaksiyat almar'a almuslima gabadha muslimada iyo sifaadkeeda waxaynu ku dhex jirnay weli baabkii ahaa almar'a almuslima maca rabbihaa waxaynu caawa sharaxaynaa qodob aada u dheer oo waxa weye xaqiiqatan aada iyo aada muhiim u ah qodobkaas waa qodobka 24 baynu maraynaa oo ka mid ah baabka almar'a almuslima maca rabbihaa wuxuu leeyahay qodobkaasi tacmalu waxay samaynaysaa gabadha muslimada calaa nusrati diin illah diinta ilaahay bay u gargaaraysa diinta ilaahay ayaa laga rabaa gabadha muslimada inay u gargaarto seeday ugu gargaaraysaa marka iyo yay ku dayanaysaa ayuu xaqiiqatan aada iyo aada ugu dheereeyey mualifku maaragtay adilada uu keenay baabkaani markaa wuxuu u noqonayaa intiisa badan asiira siiradana xaqiiqatan axaadiista kusoo aroornay way fara badan yihiin marka xoogaha culummadu way iska tasaahulaan oo ma adkeeyaan siirada maadaama ay tahay arrin xoogaa laga qaadanayo tarkiib iyo waxa weeye maaragtay la isjeclaysiinayo oo lagu dayanayo laakin alxamdulilah axaadiista aynu wada keeni doono inteeda badan waa bukhaari iyo muslim iyo waxa weeye axaadiis wada saxiixa haddaba gabadha muslimada iyo ninka muslimkaaba sida looga rabo inuu ninka muslimkaa diintiisa ugu gargaaro oo diinta ilaahay ugu gargaaro naftiisana ugu gargaaro dadka mujtamacana ugu gargaaro ahalkiisa iyo dadkiisa oo dhan uu ku tarbiyeeyo ayaa gabadha muslimadaana laga rabaa waxyaalaha aada iyo aad min ajali alacmaal ah oo acmaasha ugu wanaagsan oo ilaahay loogu dhawaadana waxaa ka mid a diinta ilaahay in loo gargaaro haddaba fain almar'ata almuslima alsaadiqa alwaaciya hadya diiniha gabadha muslimada oo runta ka sheegaysa oo diinteeda garanaysa hadyigii nabiga calayhi salaatu wasalaam garanaysa kama gaabinayso in ay diinta ilaahay u gargaarto waayo sababtu waxa weeye waxay arrintaani ku xaqiiqoobaysaa oo taxqiiq u tahay gaayadii dhammayd oo laynoo abuuray wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun ayuu yihi ilaahay wax kalaba uma abuurin jinniga iyo insigaba ilaa aniga inay caabudaan mooye ilaahayna si kale looma caabudi karo ilaa in diin lagu caabudo mooye oo dariiqada loo marayo cibaadada ilaahay waa diinta diintii markaa haddii aadan u gargaarin ukhti fillaah oo aadan barashadaadii iyo ku dhaqankaagii iyo waxa weeye uhiilintii aadan dhinac walba u garab istaagin cibaadadaadii ma taxqiiqin kartid laa ilaaha ila allah kalimatu tawxiidna ma taxqiiqin karid haddaba walaqad adrakat almar'a almuslima alula gabdhihii saxaabiyaadka ahaa xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam joogay oo waxa weeye maaragtay saxaabiyaadki iyo taabiciintiiba ka dambeeyeyda waxay aada iyo aada u ogaadeen oo u arkeen inay tahay arrintaani arrin lagama maarmaana haddaba waxaan doonaynaa bal inaan soo qaadano oo aynu sheegno qeyb ka mida gabdhihii muslimaadka ahaa oo ilaah iyo rasuulka rumeeyey sidii ay diinta ugu gargaareen oo ay u garab istaageen nabiga calayhi salaatu wasalaam siday ugu dadaaleen oo dhibaatadii ay ugu dulqaateen siday hijradii
iyo meelihii la marayey iyo dhibaatadii oo dhan ay ugu sabreen. bal wanaagga noocaasa waxaan rabnaa marka gabdhahan aan akrin doono sheekadooda iyo qisaskooda ay soo mareen iyo dhibaatada ay la kulmeen, waxaan doonaynaa aayadaan u akriyayno iyo sababtaan u akriyayno ma aha in la iska dhegaysto keliya, laakiin waxaan ka doonaynaa gabar walba oo muslimada markay ogaato gabdhihii la mid ahaa heerka ay ka gaareen dacwada iyo diinta iyo say ugu dadaalayeen, iyadina dadaasho marka oo calal aqalla wax kale haddii ay samayn weydo horta bal inay nafteeda iyo ilmaheeda badbaadiso, khaasatan waxa weeye inay ilmaheeda aada iyo aada ugu dadaasho siday u badbaadin lahayd. haddaba taariikhulislaam kutubu siyar waxa ay aada iyo aada u qoreen mu'arikhiintu gabdhihii faraha badnaa oo waxa weeye saxaabiyaadka ahaa oo dhibaatada badan kala kulmay xilligii diinta islaamku bilowga ahayd, say u sabreen iyo wanaagii ay sameeyeen. bal waxaynu tusaale usoo qaadanaynaa marka qeyb ka mid a, ma wada keeni karno oo culummadu kutub dhan bay ka qoreen. qofkii doonaya marka inuu aada iyo aada u muraajiceeyo wuxuu u noqonayaa kutubta laga qoray oo aada iyo aada looga hadlay, sida maaragtay kitaabka ibni xajar alisaaba uu saxaabadoo dhan kaga hadlay, ama tabaqaat ibni sacd, ama waxa weye kutubu taariikh oo dhan, kutubu siyar ayaa aada iyo aada looga helayaa, sir aclaam nubala, kutubtaas oo dhan ayaa aada iyo aada loogu soo wada naqliyey. laakiin qeyb ka mida ayaynu soo qaadaynaa sida mualifkuba inkasta oo aada u dheereeyey. waxaan uga hormarinaynaa gabadhii cajiibka ahayd oo aada iyo aada wanaagga faraha badan samaysay, asmaa bintu cumays. asmaa bintu cumays radia allahu canha waa xaaskii jacfar ibni abi aalib. rag badan baa isaga dambeeyey markii ugu horreysay jacfar ibni abi aalib baa qabay, abubakar baa markii dambe guursaday, cali ibni abi aalib baa uga dambeeyey. waxa weeye gabadh aada iyo aada u cajiibo bay ahayd, hadda ka horna qayb baan ka sheegnay arrimaheeda. asmaa bintu cumays jacfar ibni abi aalib radia allahu canha ayaa markaa qabay. waxay u degdegtay islaamka gabdhihii ugu horreeyey oo islaamka islaamay bay ahayd, maca zawjiha ninkeeday la islaamtay. jacfar ibni abi aalib waa nabigeena adeerki, waa raggii ugu horreeyey oo islaamay, waa khadiibu saxaaba, waa ninkii maalintii waxa weeye ardi xabasha markii loo hijrooday saxaabada khadiibka u noqday oo waxa weeye maaragtay difaacay raggii waxa weeye najaashida u tegey. ninkeeda ayay la hijrootay oo waxay ula hijrootay markii maka lagu dhibay oo dhibaatooyin badan ay la kulmeen. dadkii ugu horreeyey oo hijrooday bay ka mid ahayd oo u hijrooday ardu xabasha. ardu xabasha marka loo soo hijroonayana waxaa la marayay dhibaatooyin aada iyo aada u fara badan oo aada iyo aada u adag baa la marayay. ma ahayn sahal iyo waxa weye dadkeenaan maanta diyaaradaha ku tegaya ama waxa weeye baabuurta qaadanaya ma ahayn. dhul saxaaraa la lugeynayay, dhibaato badan baa la marayay, dhibtaasoo dhan bay u sabraysay oo waxa weye ay ninkeeda la hijrootay oo raacday ilaa ardi alxabasha, ilaa ay ardi alxabash. ardi xabash haddaa maqashaan waa dhulkaan hadda maanta etoobiya loo yaqaan iyo soomaaliya area o dhan baa laisku oran jiray ardi alxabasha. weliba mu'arikhiintu waxay qorayaan meeshii najaashigu uu joogay oo u ahayd maaragtay badda ay ka soo degeen oo doonta ku yimaadeen. qaar baa mu'arikhiinta waxay leeyihin inay ahayd zaylac, meeshaan hadda soomaaliya ka mid a oo dekeda zaylac inay ahayd. marka ardi alxabasha ereydaan oo dhan baa laisku oran jiray, ma jirin waxaan maanta loo kala yaqaano. haddaba marka ilaa intaasoo dhan dhibaatadaas ayay soo martay. waxaa dhacday marka intaasoo dhan ilaahay darti iyada u samaynaysa oo taxamulaysa dhibaatada noocaas. markii dambe oo nebiga calayhi salaatu wasalaam uu u hijrooday madiine ayay haddana dib u soo noqdeen oo mar labaad haddana safar aada iyo aad tacaba soo mareen. waxaa dhacday marka maalin maalmaha ka mid a
ayaa cumar ibn khadaab radiallahu canhu la kaftamay. cumar ibn khadaab baa la kaftamay, wuxuu ku yihi markaa yaa xabashiya, ay waa kafta weli, ma aha inuu ama caayayo ama wax ka sheegayo, laakiin uu la kaftanayo. wuxuu yihi yaa xabashiya, ay gabadhii xabashida ahayd ma aha asalkeeda inay ahayd, laakiin wuxuu ka wadaa dadkii xabashida tegey baad ka mid ahay. markaasu wuxuu yihi sabaqnaakum, waxaanu idinka hormarnay bilhijra, hijradii, in macnaha annagaa idinka hijroonayo, waan idinka soo hormarnayo annagaa muhaajiriintii noqonay ugu horreysay. qaalat markaaso waxay tiri ila camri, adhaar wey, laqad sadaqta bay ti run baad sheegtay, kuntu maca rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam, nabigaan la joogteen, markaasuu yudcimu jaa'iakum, kiina gaajaysan buu wax siinayey oo kiina jaahilkaabuu wax barayay, annaguna waxaanu joognay bay tiri wa kunnaa albucadaa, kuwo aad iyo aad u fog oo dhul fog jooga oo waxa weeye dhibaatoo dhan hayse baanu ahayn. wallaahi bay tiri inaanan joogaynin ilaa aan nebiga u tago oo waxa aad tiri kalaamkaaga aan nebiga u sheego. waayo waxay diidaysay oo ka carootayba, see adiga oo halkaa u hijrooday oo ilaahay darti u hijrooday, see lagu oran karaa hijradii baa laydinka hormaray? waayo dadkii ardul xabasha u hijrooday muhaajiriintii ugu horreysay oo islaamka hijrooday bay ahaayeen. nebiga u timid oo arrintiiba u sheegtay, markaasuu nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wassalaam bal lakum hijrataani, idinku waxaaba leedihiin laba hijro, hijratu lxabasha ayaad leedihiin, uma haajartum, haddana waad soo haajirteen bacda dalika ilay, haddana anaad iisoo haajirteen. marka idinku laba hijraaba leedihiin oo arrintiinu waaba ka duwantaada waxa weye maaragtay dadka kale, iyaguna hal hijray leeyihiin. ibn sacd ayaa ku warinaya fi dabaqaat, waana xadiis saxiixa sida sheekh albani raxmatullahi caleyh uu ku saxiixinayo fi fiqhi siira. haddaba marka gabadhaasi waxay ahayd gabdhihii ugu horreysay oo aad iyo aad ugu dadaalay diinta islaamka, dhulkeedii iyo dadkeedii iyo waxa weeye ehelkeedii intay ka tagtay oo ka dhaqaaqday ayay ilaahay dartii u haajirtay. haddaba gabadh walba oo muslimada, bal gabadhaa iyo iyada miisaan ha saarto. gabarh kula miday ahayd, ilmay haysatay, zawj bay lahayd, dhibaatada noocaasay maraysay, ilaahay dartii bay u lugeynaysay, intaasoo dhan waxay u soconaysay inay diintooda badbaadiso. bal intaad maanta gabar walba naftaada fiirisid, markaad ilmahaagii iyo waxa weeye awlaadaadii aad waxa weeye badbaadin kareyday oo biri aad waxa weeye intaad adigu dhumisid oo aad daraahin ka dooratid aad hadhay odhanaysid biri ilmihigaa iga xumaaday, bal gabadhaas iyo adigu heerka aad kala joogtaan, naftaada miisaan saar ukhta almuslima, oo waxa weeye bal fiiri arrinta noocaasa. waxaa kutusaysa markay gabadhaasi inay ilaahay darti waxaan oo dhan ka ahayd. kaftanka yar bay diiday xataa oo lagula kaftamay, oo cumar uu kula kaftamay inuu hijradii uga hormaray, ilaa inta nebigii u tagtay uu nebigii markaa caddeeyey inay fadli aad iyo aad u fara badan leeyihiin dadkii ardulxabasha u hijrooday. haddaba marka way badan yihiin. waxaa kaloo ka mid ah wa fii baycati alcaqaba, baycati alcaqaba allatii tamat siran, waxa weye waa markii maka la joogay oo waxa weye nimankii ansaarta ahaa ay nebiga waxa weye baycada kula gelayeen waxa weye mawsim alxaj, oo ay kula gelayeen baycadii iyo ballanta inuu haddii uu soo haajiro madiino yimaado ay waxa weeye naftooda iyo maalkoodaba ku furanayaan oy difaacayaan. hameen ayay dhacdayba, waayo quraysh baa laga baqayey. beecadaas iyo ballantaasi hameen bay ahayd. hameen barkiibaa waxaa la isugu tegayey
oo nebigu kula ballamay nimankii ansaarta ahaa waxa weeye mawsim alxaj meesha xajka mina iyo halkaa waxa weeye buur meel cidlaha kula ballama oo mugdiya nebigana halkaasi ugu yimid iyagiina intay nin usoo baxeen ayay halkaa yimaadeen beecada xilligaa dhacaysay oo waxa weye beecadii ugu horeysay oo islaamka bilaabatay ah waxa weeye laba gabdhood oo muslimiina ku jiray laba gabdhood ayaa kamid ahaa oo waxa weye aad iyo aad gabdhaha caqliga iyo makaanada leh kamid ahaa waxay ahaayeen labadaa gabdhood nasiiba binti kacab almaaziniya gabadhaasaa la ohan jiray iyo umu maniic waa asmaa binti camar waa mucaad ibnu jabal radi allahu canhu hooyadii wey umu maniic baa layaha waa iyadana asmaa binti camar baa la ohan jiray assulamiya waa mucaad ibnu jabal hooyadii ay waxa weeye saxaabigii jaliilka oo macruufka ahaa oo caalimu hadihi lumma waxa weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam daacimnimada ugu diray ila alyaman isagoo shaab oo dhalinyaro ah oo wiil yara ayaa halkaa loo diray isagoo daaciya waa hooyadii soo barbaarisay ayaaba beecadii ugu horeysay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam uu galay ayayba kamid ahayd waxa weeye gabdhihii halkaa ka qayb qaatay haddaba marka ballantii nebiga lala gelayey ayay wax ka galeen oo ku ballan qaadeen inay diinta u gargaarayaan oo waxa weye rasuulka u helinayaan sidoo kale nebiga calayhi salaatu wasalaam walamaa sadaca rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam bidacwatih nebiga markuu dacwadiisii uu daahiriyey oo waxa weye ilaahay uu amray dacwadiisa inuu waadix ka dhigo fasdac bima tu'mar markii la yidhi u caddeeyo bilaaci dacwada oo waxa weeye ka awal markiiada hoos baa dacwada loo waday laakiin markii dambea la yidhi bilaaci waxa weye u sheeg oo dadkoo dhan si waadixa u gaarsii oo suuqa la istaag markay saa dhacday oo nimankii qurayshta ay xanaaqeen oo waxa weeye ilaahyadoodii iyo sanamyadoodii la yidhi waxay sheegayaan ma jirtee ilaahay keligii caabuda oo iska daaya waxaan aada wadaan markay heshiiska marka galeen oo ay ku heshiiyeen nebiga inay dilaan gebigiisaba ka takhallusaan oo qurayshi intay tashatay ay ku ballan qaadeen caawa haneennimo inay gebigiisaba dilaan waxay warinayaan ahlu siyarka sida maaragtay tabaqaat ibnu sacdi alisaabi ay ku warinayaan sirtii ay galeen oo ay ballan ku qaadeen inaan qofna sheegin oo dhexdooda ahayd waxay ku ballameen intay guri tageen oo ay ballameen ayay waxay ku ballameen 100 wiil oo 100 seefood haysta inay nebiga hal mar ay gurigiisa inta ku jebiyaan habeennimo ay 100 kuba hal mar seefta ku dhuftaan oo hadhow qabiil loo raacdo la waayo oo markaasaa looga takhalluso gabar la ohan jiray ruqayata binti sayfi ayaa waxa weye oo islaam weyn ahayd oo ku dhex jirtay laakiin muslimada oo waxa weye iimaankeeda qarsanaysay ayaa sheekadii ogaatay halkaas inta soo guuraysay oo habeennimo soo guuraysay oo waxa weeye ay soo dhuumatay ayay nebiga u sheegtay baa lay arrintii ilaa markaa uu nebigu diyaar garoobay oo waxa weeye uu ku dadaalay sidii waxa weeye uga badbaadi lahaa waxa weeye mashaakilkooda iyo dhibaatadooda haddaba gabadhaan maxaa eriyeyey waxaa soo kiciyey gabadha muslimadda ah iimaanka qalbigeeda ku jira ayaa wuxuu arkaysay oo ay ictiqaaday inay nebiga calayhi salaatu wassalaam haddii caawa la dilo inay diintii waxa weeye ay baaba-ayso sidaas daraaddeed marka inay u hiiliso oo ay waxa weeye ku dadaasho say nebiga u badbaadin lahayd ayay waxa weye arrintaa u samaysay haddaba marka nebiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu bilaabay iyo abubakar inay waxa weye ay galaan waxa weye maaragtay dhuuntaan oo waxa weye ay ka dhuuntaan waxa weye quraysh iyo nimankii dhaalimiinta oo ay halkaas jabalu thawr intay galeen ay dhowr beri ku jireen
halkaa markay galeen waxaa dhacday markaa gabar aad iyo aad u yar waa asmaa binta abi bakr asidiiq radia allahu canhuma ayaa waxay samaynaysay arrimo aad iyo aad u cajiiba jabalu tawr ayay habeennimo u guuraynaysa intay maalintii cuntada u diyaariso oo halkaas waxay caawa cuni lahaayeen u diyaariso ayay markay qoraxdu dhacdo hanay noqoto oo mugdi noqoto ayay halkaa guuraynaysaa keligeed oo ay dadaalaysaa iyadoo dhuumanaysa oo si aan qofna u arag ayay waxay ku dadaalaysay inay dadkoo dhan ka qarsoonto oo aad iyo aad isku qariso halkaas ayay markaa intay nebiga u tagtay calayhi salaatu wassalaam iyo abubakar aabaheedii ayay halkaa cuntada ugu geynaysa oo wax alla wixii akhbaar maanta reer maka ay ku sheekaysanayaanna ay u geynayso oo arrinta uga warramaysa oo waxoo dhan ay halkaa u gudbinayso iyadoo u arkaysa inay arrintaasi tahay nusratan lidiin illah diinta ilaahay inay u gargaarto oo waxa weeye ay nebiga calayhi salaatu wassalaam iyo saaxiibkii ay gaaraan gaayadooda iyo dantooda u fiirsa marka ukhta almuslima bal gabadhaa yartaa oo aad iyo aad cajiibka u ah waxyaalaha ay samaysay ayaad la yaabaysaa markaad aragtid waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid a ayay markay qurayshi daashay oo ay waxa weeye maaragtay ku wareereen arrintii nebiga calayhi salaatu wasalaam meeluu galayna ay waayeen ayay u yimaadeen iyadoo uu la socdo raggaa u imaanaya abujahl lacanahu llah lacnatan mutataabica shaydaankii ugu weynaa ummaddan ayuu ahaa markaasay guriga ugu yimaadeen markaasay waxay yidhahdeen aaway aabbahaa markaasay inkirtay aabbaheed bay weydiiyeen way inkirtay markaa ma garanayo maxaa weydiinaysaa watajahalat khabarahu arrintiisiiyo dhanbayda waxaaba iska dhigtayba qofaan ogeyn way handadeen markaa oo canaan bay usoo jeediyeen oo waa loo goodiyey markaasay aad iyo aad waxay ugu adkaysatay inaynan u jixin ilaa ay taariikhda werinayaan ay yidhaahdeen alasiyarku abujahal ayaa dharbaaxo aad iyo aad u kulul ayuu waxa weeye ku dhuftay ladamahaa ladmatan wuxuu uu dharbaaxay ilaa bay yidhaahdeen taariikhdu ay leeyihiin aan taariikhu siyarku ilaa waxa weye dharbaaxadii uu ku dhuftay dhegtii yarayde waxa weeye uu u suray dhagaheeda waxay dhegihii u suraa ay finiintay oo waxay dharbaaxadii ku kala jeliyey waa gabar yara waa wax axmaqa waa wuxuu garanayo jirin oo jaahida oo keliya u tacasubaya laata iyo cuze caqli kale u leeyahay ma jirto bal gabar yar oo waxa weye gabdhihiisii lamida ayuu wuxuu ku dharbaaxayaa waxa weeye dadkii oo dhan iyagoo fiirinaya oo raggii oo dhan ay u jeedaan waxaasoo dhan umay jixin umana ooyin umana ay jixin ee waxa weye waxay ku adkaysatay in aynan marnaba ayna waxa weye arrintaas aynan fidin sirta nebiga calayhi salaatu wassalaam waayo iyadu waxay og tahay nebigii iyo aabaheedu meeshii joogaan haddii marka ay sheegto oo waxa weye ay sirtii fidiso haddee waxaa baaba-aysa markaa diintii iyo halkaa waxa weeye hijradii iyo adduunka wixii o dhan baa isku wareeraya way diiday marka waxaa kaloo waxyaalaha ay cajiibka ahayd ka mid ahaa ay waxa weye gabadhaasi caamka ku baxday habeenkaas waxay samaysay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo abubakar markii ay baxayeen oo maalintii ay ballantu ahayd inay baxaan la gaaray oo markay 3 habeen meeshii ku jireen ay rabeen markaa madiina inay u baxaan ayay cuntadii u diyaarisay oo waxa weye ay saadkoodii biyihii iyo cuntadii iyo wixii ay cabdi lahaayeen ee u diyaarisay markay u diyaarisay marka oo alaabtii ay diyaarisay ayay waxay weyday wixii saadku ku jiray oo cuntadii iyo weelkii uu ku jiray waxay afka kaga xidho iyo waxa weeye
wixii sharaabku ku jiray fibraarkii iyo wax afka kaga xidhan weyday markaas waxay samaysay riwaayadaha qaar waxay leeyihin iyadaa samaysay, qaarna waxay leeyihin aabaheed baa amray oo wuxuu yihi saas same, waxay tiri wax kale ma hayo ilaa nadaaqeyda mooye. markaasuu aabeed wuxuu yihi kala jeex oo ku xir isaga, wa sumiyat bidalika bidaati nadaaqayn. nadaaqa waxaa la yidhaahdaa waa bahalka dhexda lagu xirto, waa marada ay dumarku dhexda ku xirtaan, soomaalidu duluc iyo wax lamida yidhaha, ama waa suunka oo kale, waa meesha raggu suunka ka isticmaalaan, dumarkuna dharki waaweyn bay qaadan jireen oo waxa weye soomaaliduba way isticmaali jireen, way soo gaareen. waxa weye marka maradii yarayd oo dhuubka ahayd oo waxa weye duluca iyo waxa lamida ayay inta kala jeexday oo furtay, waaba maradii dhamayda iyadoo u xiray, intay furtay oo kala jeexday ayay markaa ku xirtay. markaasaa waxaa loo bixiyey bidaati nadaaqayn, daati nadaaqayn, gabadhii labada duluc lahayd ee labada maro oo waxa weye labada maroo dhexda lagu xiro ayaa laga wadaa dhuubka. haddaba markaa wanaagga noocaasa iyadoo weliba aada iyo aada gabar dhalinyarahayda ayay wanaaggaasoo dhan waxay u sameynaysay nusratan lidiin illah, diinta ilaahay inay u gargaarto. waxayna garatay in aynan marnaba waxa weye haddaan loo gargaarin diinta inay waxa weye noloshu ay aada iyo aada u kharaaraanayso oynan wax qiimaa lahayn. intaasoo dhanna waxaa keenayey waa iimaanka. haddii gabadha muslimadda ay diinteeda fahanto, iimaanku qalbigeeda uu galo, wax walba way ka hormarinaysaa nusrada ay diinteeda ugu gargaari. waxay kaloo weriyeen sida ibnuljazi uu ku warinaya axkaam nisaa oo siyarkuna werinayaan, waxaa jirtay gabar la ohan jiray umu kalthum binti cuqbat ibn abi mucayd ayaa jirtay. waxaa dhacday xilligii nebiga calayhi salaatu wassalaam, nebigu wuxuu la galay ballan quraysh, waa markii dambe oo sulxulxudaybiya la galay oo madiine inta la yimi oo markii dambe oo dagaalkii beder iyo uxud iyo kabacdi ayaa sulxulxudaybiya la galay. waxaa lagu ballanay marka oo ay qabsadeen shardigii ahaa qofkii soo islaama oo waxa weye annaga naga mida inaad loo soo celisid. nebiguna waxa weye shardigii waa la galay, wuuna u oofiyey. waxaa dhacday marka in rag ka mida la celiyey. maalintii dambe ayaa waxaa dhacday gabadha umu kalthum la yidhaahdo binti cuqbat ibn abi mucayd uu dhalay ayaa soo hijrootay oo waxay usoo hijrootay madiina markay dhibaato badan kala kulantay mushrikiintii oo aada iyo aad ay u dhibaateeye. nebiga calayhi salaatu wasalaam markay u timid ayay la hadashay, waxay tii rasuulka ilaahayow inii farartu ilayka bidiini, diinteedaan la soo cararay, aniga ha ii celinin bay tiri dadka ah, quraysh ha ii celinin, waayo diinteyda iga samaynayaan, dhibaatoo dhan bay ii geysteen, uma sabri karo. waad ogtahay gabadhu inaynan qofka dumarkaa sabirkeeda uu daciif yahay, ha ii celinin marka. markaas ay saa tiri, nebiguna waa ka aqbalay, waayo shardiga kuma jirin dumar ee ragga ayaa shardiga galay ee dumar meesha shuruudda kuma jirin. ilaahay baa wuxuu ku soo dejiyey markaa qawluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu ida jaakum almu'minaatu muhaajiraatin famtaxinuuhuna allahu aclamu biiimaanihina fain calimtumuuhuna mu'minaatin falaa tarjicuuhuna ila alkufaar laa huna xilun lahum walaa hum yaxiluuna lahuna ila aakhir alaaya fi suurati almumtaxina. aayadahaas ayaa ku soo degay. ilaahayna waxa uu buriyey ballantii ay islahaayeen mushrikiintu, dumarkana waa laydiin soo celinaya. naqdiga halkaasaa lagu joojiyey, cahdigaas waa la buriyey oo waxay noqotay markaa gabar mu'minada oo soo haajirtay inaan gaalo loo celin.
waxaa kaloo halkaas ilaahay caddeeyey gabar mu'minada inaan nin gaala ayna xalaal u ahayn laa huna xillun lahum walaa hum yaxilluuna lahuna mar hadday gaalo noqdeen iyadiina muslimad noqotay halkaa ayay ku kala dhaqaaqeen haddaba marka gabadhaa wanaagga ay samaysay iyo sabirkii ay samaysay ayaa allihii subxaana qaadirka ahaa u hiiliyey oo caddeeyey waxa weeye wanaagga ay leeyihiin gabdhihii mu'minaadka ahaa inaan gaalana loo gacangelinaynin ayaa markaa halkaas ka caddaatay waxaa kaloo ka mid ahaa gabdhaha aada iyo aada cajiibka u sameeyey umu fadl binti xaarif waxa weeye lubaaba ayaa la ohan jiray lubaaba binti alxaarif waa cabdullaahi ibni cabbaas hooyadi turjumaan alqur'aan cabdullahi ibni cabbaas hooyadi wey waana gabadhii la dhalatay maymuuna xaaskii nebiga maymuuna bint alxaarif um almu'miniin walaasheedi weeye marka cabdullahi ibni cabbaas maymuuna ayaa habaryar u ah waxaad filaya inaad wada garanaysaan arrintaas waxaana qabay oo dee ninkeedu waxa weeye waa cabbaas waa nebiga adeerki gabadhaani waxay ahayd baa la yidhi sida ay ahlusiyirku warinayaan gabdhihii ugu horreeyey oo islaamay qaar baaba waxay leeyihiin waxay ahayd gabadhii labaad oo islaamtay oo waxa weye maaragtay gabadhii ugu horreysay oo nebiga rumaysay bal qofkii ugu horreeyey oo rumeeyey nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd gabar muslimada khadiija binti khuwayla waa qofkii ugu horreeyey oo nebiga rumeeyey oo nebigu markii calayhi salaatu wasalaam diinta lagu soo dejiyey oo uu yimid isla markiiba oo rumay haddaba markaa lubaada gabadha la yidhaahdo waa cabbaas baa qabay waana cabdullaahi ibn cabbaas hooyadi umu fadli baana lagu magacaabi jiray waayo fadli waa wiilkeedii waa ina cabbaas isaguna waxay leeyihin markaa taariikhu markay rumaysay cabbaas iyo waxa weeye iyadaba nebiga calayhi salaatu wasalaam iyagoo iimaankooda qarinaya ayay mushrikiinta ku dhex jireen oo maka joogeen oo aad bay ugu ta'akhureen maka dadkii dambe bay ahaayeen goor dambe ka soo baxay xikmad ayayna u joogeen baa la yidhi inay ogaadaan waxa weeye arrintaa ay qurayshi maagan tahay oo waxa weeye ay ku dhex jiraan gabadhaani marka waxay aada iyo aada uga soo horjeeday gabadhii kale oo shaydaamada ahayd oo abulahab uu qabay xamaalat alxadab oo waxa weye maaragtay nebiga calayhi salaatu wasalaam dhibi jidhay umu jamiil baa la odhan jiray iyadana binti xarbi nebigay dhibi jidhay oo dhibaato badan ku samayn jidhay waayo abulahab waa nebiga adeerki shaydaamadaana isagaa qabay nebiga marka aada u dhibi jireen lubaadana waxaa qaba nebiga adeerki cabbaas iyo abulahab waa walaalo wey labaduba marka waa nebiga adeeradii weye marka midna waa dhibayaa oo shaydaan buu ku noqday midna waa u gargaarayaa oo nebigu u hiilinayaa isaga iyo xaaskiisiiba waxaa dhacday marka ay taariikhda ku keenayaan maalintii beder oo muslimiintu ay guuraysteen ayay waxay joogtay lubaada markay joogtay iyada iyo ilmaheedii iyo waxa weeye nin mawlaheeda ah oo laohan jiray abaa raafic madiinay makay joogeen waxay amartay marka inay qariyaan ilmihii bay la dardaarantay iyo mawlaheedii waxay tiri ha farxinina waayo haddaad farxad muujisaan dee kuwaanay dhibaata inagu samaynayaan isqariya marka waxaa dhacday marka ninka la ohan jiray abaa raafic oo mawle ahaa ayaa arrintii xoogaa waxa weeye isqarin kari waayey abulahab baa dareemay marka farxaddiisii abulahab baa dharbaaxay way xanaaqday baa la yidhi marka oo intay tiir qaadatay ayay madaxa ku kala jeexday qaar baaba marka waxay leeyihin markaas taariikhda wuxuuba u dhintayba nabarkii ay ku dhufatay haba shaydaankii ugu weynaa meesha waxa weeye maka joogay ayaa markaas ay saa uga takhallustay iyadoo waxa weeye diinteeda u hilinaysa
oo istiri meeshii la doonaa lagu geeye waxa weye diintaada difaac ayay waxa weye saas uga takhallustay ayay leeyihin ilaa u dhowr beri kabacdi nabarkii ayuu u dhintay ayay maaragtay soo guurinayaan waxa weye maaragtay culamaau taarikh. haddaba marka arrimahaasoo dhan waxaad ka ogaanaysaa in ay diinta in loo gargaaro ay muhiim jiddan tahay, ilaahayna ugu abaalgudayo qofka diinta u gargaara wanaag. u fiirsa lubaada ilaahay wuxuu ugu bedelay wanaagga ay heshay. cabdullaahi ibni cabbaas oo wiilkeedii wuxuu noqday xabru haadihi alumma, caalimkii ummaddaanuu noqday. wuxuu noqday turjumaan alqur'aan, waa ninka keliya oo waxa weeye loo bixiyo turjumaan alqur'aan. haddaba gabar walba oo muslimaday waxaad ku dadaashaa inaad diinta ilaahay aada waxa weeye u hiilisid, inaad diinta ilaahay aada ku dhaqantid, inaad ilmahaaga ku tarbiyeysid si ilmahaagu ay biri u noqdaan kuwii diinta ilaahay xambaari lahaa, kuwii diinta ilaahay waxa weye wax u qaban lahaa, si adigana aada ajarkaas halkaa waxa weye kuugu socdo. waayo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay alwaladu min kasbi abiih, ilmaha aad dhashid oo aad tarbiyeysid oo aad diinta dartid, camal walba oo sameeyo ajar ba adigana kaaga socdo, ajar ayaa kaaga socda. haddaba markaa qof walba oo arrintaa waa inaad ka fekertid. amaa haddii aad tidhaahid maanta sidaa caqligeena gashay innagoo faqri ka cararayna in la yidhaahdo keliya ilmaha cuntadoodaan fiirinayaa, lacag un baan fiirinayaa, ee diintooda ka fekerimayo, waa midayna dhaxal siisay inay markaa waxa weeye aynu adduun iyo aakhiraba ay halkaa waxa weye aynu seegnay markaa. laakiin haddaad gabdhaha ku dayataan akhawaati oo aada ku dadaashaan inaad ilmihiina badbaadisaan oo diintiina u nusraysaan, wanaag fara badan ayaad gaaraysaan. waxaa kaloo iyadana aan soo qaadanayna oo aada iyo aada u cajiiba qisadii mashhuurka ahayd, gabadhii muslimadda ahayd oo taariikhul islaam lagu qoray waxa weeye magaceeda baal dahaba, oo waxa weeye mansilada ugu qaalisan oo qofka islaamka uu gaaro waxa weye qofkii ugu horreeyey oo gaaray ah. awala shahiida, gabadhii ugu horreysay oo shahiido noqotay, oo iyadoo aan weli ninba shahiid noqon oo aanin diinta ilaahay u dhiman, gabadhaa ugu horreysay qofkii diinta ilaahay u dhintay oo waxa weeye taariikhul islaam lagu qoray oo noqotay awala shahiid. waxay ahayd gabadhaasi sida macruufkaa sumaya, waa umma camaar ibna yaasir hooyadii wey. maxay ku noqotay arrintan oo heerkan ku gaartay? camaar ibna yaasir isaga iyo aabihii iyo hooyadiiba dad masaakiinay ahaayeen. niman la yidhaahdo bani makhzuum ayaa aada iyo aada dhibaato badan la dhinsiiyey. maka ayay joogeen, waa la addoonsaday. mar alla markay islaameen ayaa waxaa la samayn jiray duhurkii markay noqoto oo qoraxdu aada u kululaato, qofkii maka tegay baa garan kara, oo waxa weeye iyadoo qabo jirina dee waxa weye meesha kulaylka oo waxa weye saxaaraha ah ayay halkaa inta soo bixiyaan oo bacaadka kulul ay saa u seexiyaan ayay halkaa ku cadaabi jireen, dhibaato walbana ku samayn jireen. waxay samayn jireen intay dhulka seexiyaan oo dhagxan dusha ka saaraan ayay ciidda kululna saa ugu roogi jireen. dhibaatada noocaasa markay ku sameeyeen oo wax walba ay isugu dareen, ilaa markii dambe ay yidhaahdeen cadaabkaa ka bixi maysaan ilaa aada laate iyo cuzana ammaantaan, muxamedna aada caydaan, ilaa aad waxay amadana raali gelisaan, ilaa kelimad aada lagu raali gelisaan. waxaa dhacday marka
camaar ibna yaasir waa diiday hooyadii waa diiday ilaa markii dambe markaa abujahal iyo lacanahu llah oo waxa weye intuu waran ku dhuftay ay markaa naftii ka dhacday cadaabkii u cadaabayey baa layidhi iyo dhibaataday ku samaynayeen ayay inta u adkaysanayday labada indhood canduuf kaga dhufato markaasu intuu xanaaqay waran ku dhuftay ilaa ay halkaa naftii ka baxday oo lagu qoray markaa waxa weye taariikhu lislaam nebigana calayhi salaatu wasalaam halkaa intuu soo maray u ohan jiray sabran ya aala yaasir fa ina mawcidakum aljanna sabra janna aad leedihiin sidaa daraaddeed bay waxay noqotay awala shahiidin fi lislaam iyadu waa diiday aslanba inay erey ku dhawaaqdo raalli gelisa mushrikiintii laakiin camaar waa qaatay isagu markuu naftu u yaabay markaasaa ilaahay ku soo dejiyey isagoo ooyaya markuu nebiga u tegey oo u sheegay arrintii ayuu markaa wuxuu yihi nebiguna kula dardaarmay hadday dhibaato dambe kuu geystaanna mar haddii qalbigaaga iimaankii ku sugan yahay waxaad naftaada ku badbaadin karid ku badbaadi ilaahay baa ku soo dejiyey ilaa man ukriha wa qalbuhu mudma'inun biliimaan qofka qalbigiisii mar haddii iimaankii ku sugan yahay erey markaa uu afka ka yiri oo daruuro ah oo dhibaato loogu geystay waxa weeye kuma gaaloobay haddaba marka diinteeday u dhimatay waxayna noqotay shahiid qofkii ugu horreeyey oo waxa weeye jannada ilaahay ugu bishaareeyey inay horay ka gashay wa fi taarikhi alislaam kahiiraatun aad iyo aad bay ugu badan yihiin taariikhda islaamka gabdhaha dhibaatadaas u dulqaatay oo waxa weeye aad iyo aad dhibaatadaa faraha badan markay la kulmeen ku dhacay ilaa ay ahlu taariikhu qoreen oo taariikhda lagu qoray xilligii maka la joogay nimankii mustadcafiinta ahaa oo dhibaatada loo geystay oo saxaabadii dhibaatada loo geystay bilaal ma ahee ragga inta kale mushrikiinta ereygii ay ka dalbayeen oo ahaa annaga waxaan rabno ku dhawaaq moxamed nacay bilaal ma ahee rag badan oo kale ayaa naftooda ku badbaadiyey laakiin bilaal isagu waa diiday oo waatuu oran jiray isagoo waxa weeye dhagaxa inta dusha laga saaray dacaadka lagu cadaabayo axad ku hayay ay allah allah oo marnaba ay soo marsiin waayeen ilaa markii dambe abubakar uu ka xoreeyey laakiin dumarkii la cadaabayo dhibaatada lagu samaynayey taariikhda islaamka laguma qorin gabar keliya oo yeeshay warkoodii kulli waa adkaysteen oo way diideen inay waxa weeye ay warkoodii yeelaan oo ay ku raaligeliyaan iyadoo weliba banaanayd oo nebigu u ogolaaday ayaa haddana aad iyo aad u diideen arrintaa marka waxaa aad iyo aad ka mida waxyaalaha cajiibka oo xiliyadaa dhacay cabdullahi ibni cabbaas uu werinayo arrin aad iyo aad khatar u ahayd oo la soo kulantay gabadhii la ohan jiray umu shariik wuxuu leeyahay cabdullahi ibni cabbaas umu shariik gabadhaa la yidhaahdo ayaa waxaa ku dhacay islaamkii way islaamtay wahiya bimaka maka iyadoo joogta markay islaamtay ma ay fariisan gurigeedii ee addacwa ila allah bay u banbaxday waxay samaysay inay maka ku wareegto oo dumarkii islaam walba gurigeeda intay ugu tagto iyo gabad walba gurigeeda intay ugu tagto ay islaamkii ka dhaadhiciso ila waxa weye waa fursad aad iyo aad u cajiiba oo dumarkii dumar baa wax ka dhaadhicin kara gurigay ugu tagtaa islaamkii bay ka dhaadhicisaa dumar badan baa ku islaamay baa la yihi waxa weye arrintaa ilaa markii dambe ay maqleen baa la yihi quraysh way ogaadeen arrinteedii markaasay u yimaadeen oo qabteen oo waxay ku yidhaahdeen lowlaa qowmik haddaan qabiilkaaga haddii aanu kaaga baqaynin waanaa qurayshay ahayd oo waxa weye maaragtay waxay qabiil unbay iyagu fiirinayaan ilaahay iyo waxay eegayaan oo kale male waayo waa gaalo mushrikiin aan caqli lahayn waxaanu kugu samayn lahayn wax badan oo dhibaato badan laakiin hadda
wax kala kugu samayn mayno, qabiilkeedu ma degeneen magaalada maka, way ka baxsanaayeen, meel kale deganaayeen, waa ku celinaynaa, qabiilkaagii baanu kuu celinayna ayay yidhaahdeen. waxay tiri iyadaa ka sheekaysay, waxay tiri waxay sameeyeen faxamaluunii calaa baciirin, waxay isaareen bay tiri rati aan wax gura-a lahayn, waayo carabtu dhaqankooda wuxuu ahaa haddii qofka dumarka ahi geel uu fuulayo oo rakuub ka dhiganayo, waxay u samayn jireen bahal la yidhaahdo guri yara oo hawdaj la yidhaahdo, hawdaj baa la yidhaahdaa. waa kan waxa weeye qofku hadduu akriyo xaadisatul ifki oo kale, meesha caaisha ay kaga sheekaynayso oo kale fi suurati nuur markay aayadaha soo degayeen xadiidkii dheeraa. haddaba marka hawdaj baa la waa guri yara oo waxa weeye gabadhu intay fuusho halkaa dhexdaa ku jiray, waayo dee gabadhu labada lugood kama kala rogan karno ratiga iyo faraska iyo, laakiin raggu iyagu dee surweel buu iska gashanaya, markaasuu labada lugood ka kala tuuranaya. gabadha markaa hawdajkaas oo kale ayaa loo samayn jiray, umay samaynin marka, ratigiiba inta saareen iyagoo waxba u samaynin ayay ku xirxireen. waxay tidhi 3 beri cuntana afka imay saarin, markii meel ay degaanna anigana qoraxday igu xirayeen, iyaguna hoos bay harsanayeen. intay 3 nin u fiidiyeen bay yidhahdeen kaxeeyo waxa weeye masaafiriya deligeedaba. hay waxaasoo dhan marka waxaynan dani gelaynin, maadaama ay ilaahay darkii arrintaasi u gaaraysay, dan umay gelin oo waxa weeye ma aynan kala jeclayn, arrintaasay ku socotay. haddaba gabdhaha muslimaadka oo waxa weeye saxaabiyaadkii aad iyo aad bay u fara badan yihiin, oo arrintooda waxa weeye aad iyo aad bay u fara badan tahay. mana ahayn arrintoodu intaa keliya inay ku ekaatay, bal xataa markii dambe oo dagaalkii la iclaamiyey oo waxa weeye jihaadka la jideeyey oo ilaahay uu ogolaaday nabiga calayhi salaatu wassalaam inay waxa weeye iska dhiciyaan gaaladii, waxay ahaayeen kuwo nabiga calayhi salaatu wassalaam dhinac taagan oo dagaalkii la gala oo waxa weeye khaswadii la duuda. waxay leedahay sida imaamu muslim uu warinaya, axaadiis badan baa ku soo aroortay, bal qayb aan ka soo qaadano. waxay leedahay umu cadiyat alansaariya radia allahu canha, waa gabadhii saxaabiyadda ahayd oo ayna hadda ka horna soo marnay, iyadoo ka sheekeynaysaa waxa weeye ciidda. umu cadiyat alansaariya qaalat waxay tihi gazawtu maca rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam 7 ghazawaatin, 7 duulaan baa nebiga raacay oo aan la duulay. maxaan samayn jiray? ma aha inay dagaalka ay safka hore intay gasho iyadu wax dili jir, laakiin arrimahaanay qaban jireen. waxaan samayn jiray bay tihi, meeshii la dego ayaan anigu waxa weeye cuntadaan diyaarin jirnay, oo biyahaan soo dhaamin jirnay, oo dhaawacaan dawayn jirnay, oo kuwa xanuunsan baanu biyaha siin jirnay, oo kulli waxyaalahaas o dhan baanu qaban jirnay. anas ibnu malik radiallahu canhu isaguna waxau leeyahay umu sulaym iyo dumar badan ayaa la duuli jiray nabiga calayhi salaatu wassalaam. umu sulaym iyo niswatu min alansaar ayaa nabiga la duuli jiray, fayasqiina almaa, biyaha ayay soo dhaamin jireen, wayudaawiina aljarxa, kuwa dhaawaca ayay dawayn jireen, dhakhaatiir bay ahaayeen oo waxa weeye way kalkaalin jireen. wuxuu kaloo imaamu albukhaari warinaya can rubayc binti mucawid ayuu ka warinayaa inay tiri kunaa maca anabiyi sala allahu calayhi wasalam, nabigaanu raaci jirnay, la soconay ghazawaadka, nasqi wanudaawi aljarxa wanaruddu alqatla ila almadiina. waxaanu soo waraabin jirnay dadka, oo kuwa dhaawacaan dawayn jirnay, oo kuwa la diladaanu waxa weeye celin jirnay. intaasoo dhan ayaan samayn jirnay iyo ka badan. haddaba marka ma aha inay dumarku ahaayeen kuwo ka fekera keliya guriga iyo waxa weeye maaragtay ilmaha, waxay ahaayeen kuwo dacwada u taagan oo nooc walba oo dacwada ugu timaado ka qayb qaadanaya. waxa uu warinayaa anas bin malik radi allahu canhu, bukhaari iyo muslim ay ka warinayaan, lama kaana yowma uxud, maalintii uxud,
markii ay jabeen dadkii muslimiinta ah oo laga guushii ay gaaladu qaateen oo waxa weeye saxaabo badan la laayay maalintii xamze iyo la dilay oo waxa weeye shuhadaa uxud maalintii ay waxa weeye shahiideen ayay markay jabeen oo yaaceen ayaa waxaa dhacday dad yar baa nebiga ku soo haray. dadkaa yaroo nebiga ku soo haray waxaa ka mid ahaa abu talxa ayaa ka mid ahaa. abu talxana wuxuu ahaa nin aad iyo aad waxa weeye ramyiga oo waxa weeye shiishka aad u yaqaan buu ahaa oo waxa weye meesha dee qori lama haysan iyo hubkaan maanta berendeeriga ahe waxaa la haystay oo ugu badnaa qaansada iyo leebka iyo laisku gamayo gamanka iyo waranka iyo seefta waxaasaa hub ahaa. haddaba umu sulaym wuxuu leeyahay marka xadiidkaa wuxuu ku leeyahay walaqad ra'aytu baa uu yihi waxaan arkay buu yihi caaisha radia allahu canha bint abi bakr. caaisha gabar yar bay ahayd, nebiguba wuxuu aroosay gebigeeda iyadoo yar, uxudna isla markiiba way dhac waxay gabar yar bay ahayd oo aad iyo aad u yar. maantana waxay arkaysaa waxaa lagu leeyahay weli waa teen age, gabar geedo waxa wey dhowr caruura dhalay lahayd. u fiirso caaisha radia allahu canha gabar yar iyadoo ah iyo umu sulaym ayaa maalintaa waxaan arkay buu yidhi wa inahumaa lamushamirataani iyagoo dharkooda intay kor u qaatay oo waxa weye shamri waxa weye markii qofku intuu marada kor u qaato oo waxa weye xoog u soconayo iyagoo soo daldalayaan arkay buu yidhi oo biyo soo dhaaminaya oo dadkii dhaawac aha waraabinaya oo aad iyo aad u dadaalaya. waxayna joogaan bartii lagu dagaalamayey oo waxa weye maaragtay uxud ayay dhex taagan yihiin oo biyihii iyo wanaaggii usoo daldalayaan dadkii dhaawac ahaa oo muslimiinta. haddaba marka wanaagga noocaasa ayay samayn jireen gabdhaha muslimiinta oo diintooda ugu gargaari jireen maratan bidacwa, dacwo hadday noqoto naftooda ay waxa weeye ay maaragtay u dulqaataan, hadday noqoto inay ka qayb qaataan waxa weeye jihaadkii oo nooc walba ay waxa weeye la geli jireen. sidaa daraaddeed ayaa waxaa dhacday sida imaam albukhaari ay werinayaan cumar ibn khadaab radia allahu canhu ayaa waxaa dhacday xilligii uu amiirka ahaa, xilligii amiirka uu ahaa ayaa waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid a ayuu wuxuu qaybiyey marada go-a weyn oo layihaha muruudka, waa maryihii dumarku ay qaadan jireen oo waxay aad iyo aad u wanaagsanaa ayuu qaybiyey dumarkii reer madiina u qaybiyey waa amiir ulmu'miniin. markaasaa waxaa soo haray hal maro oo aad u wanaagsan. markaasa waxay ku yidhaahdeen dadkii qaar ka mida waxaad siisaa maradan soo hartay umu kalsuum binti caliyi wey. waxay ku yidhaahdeen si ibnata rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam alatii cindaka. umu kalsuum waa cali ibn abi taalib baa dhalay, waa gabadhii faatima ay dhashay, cumar ibn khadaab baana markaa qaba oo ay xaaskiisii tahay. markaasuu cumar wuxuu yidhi umu saliid axaqu, gabadhaasaa uga xaq leh, umu saliid alansaariya, waayo sababtu waxay ahayd buu yidhi waxay biyaha noo soo dhaaminaysay oo dagaalka nagula jirtay maalintii uxud. marka gabar maalintii dagaalkii uxud biyaha soo daldalaysay oo diinta u gargaaraysay, midda anigu aan maanta qabo oo kabacdiba markaa kabacdi dhalatay taasaa uga xaqle buu yidhi. wuxuu ka fadilayaa marka iyadoo xaaskiisii ay dadku yidhaahdeen gabadhii nebigaad qabtaa, ay gabadhii nebigu awowga u ahaa ayaad qabtaa oo agtaada joogta, iyadoo si waxa soo haray maadaama ay dheeraa tahay maya buu yidhi waxaan siinayaa gabadhaas wanaagga faraha badan diinta islaamka usoo qabatay oo usoo dadaashay oo wanaaggaa la timid ayaan siinaya. sidoo kale maalintii uxud nebiga calayhi salaatu wasalaam markii la dhaawacay oo waxa weeye iligiisa la jebiyey micigiisa oo nabarka lagu dhuftay
yaa daweynayey oo meesha taagnaa ma aha inay gabdhahu madiine ku harayeen faatima binti rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam iyo cali bna abi aalib faatimay ahayd qofkii intay dabka soo shiday oo waxa weye maaragtay soo gubtay xasiirka markaa waxa weye ku gubaysay oo dhiigga ku joojinaysay waxaa kaloo kamid a gabdhaha aada iyo aada cajiibka u ahaa oo waxa weeye ama ghazawaadka ama qaswatu uxud aada iyo aada cajiibka u ahayd safiyata binti cabdilmutalib waa nebiga eedadi waxaa dhacday maalintaas waa tii la dilay walaalkeed xamza oo weliba dhibaato weyn loo geystay oo waxa weeye la tamhiiliyey oo wejigiisa la jeexjeexay oo caloosha laga soo riday oo dhibaato loo geystay intaasoo dhan markii loo geystay ayay waxa weeye maalintaas ayay meeshaas timid iyaduna waxaa dhacday marka inay waxa weye nebigu uu ka baqay calayhi salaatu wasalaam inay naxdo oo waxa weye arrintaas ay ka naxdo markaasuu wiilkeedu u diray waxa weye jubayr ibna cawaam oo yidhi eli ka eli yay arki walaalkeede markaasay waxay ku tiri oo maxaa ii celinaysaa wax ilaahay dartiida haddiiba intaa ilaahay darti ay noogu dhacday waaba arrin qaliilabay marka waan sabrayaabay tiri ilaahay baanan ajir iyo wanaag ka filanaya ma ay beenin mana qaylin mana aynan niyaaxama samaynin walaalkeed oo ay aada u jeclayd oo weliba saa loo galay ayay u sabraysay marka gabadha muslimadda waxaa la rabaa inay hadda xaaladda ay joogto mar walba allihii subxaana qaadirkaa uu qalbigeeda uu ku jiro oo waxa weeye iimaan iyo caqiide ay la timaado waxaa kaloo kamid a gabdhaha muhaajiraadka mujaahidiinta oo aada iyo aada usoo dagaalamay gabadhii la ohan jiray nasiiba binti kacab almaaziniya waa umu cumaarata ayaa la yidhahdaa waxaa dhacday inay aada iyo aada macrakada maalintaas ay u joogtay oo waxa weye ay aada iyo aad weliba way dagaalantay baa la yidhi gabadhaasi oo aada iyo aad bay waxa u samaysay waxyaalo aada iyo aada u cajiiba markii ay jabeen baa la yidhi oo saxaabadii ay qaar carareen ayay iyadu dadkii horay aaday bay ahayd oo nebiga calayhi salaatu wasalaam dhinac taagnaa markay soo degtay qowluhu tacaala id tusciduuna walaa talwuuna calaa axadin waarasuulu yadcuukum fii ukhraakum nebiguna calayhi salaatu wasalaam ugu dhawaaqayey iyona dee nin walba markii la jabay ayuu nin walba hortiisa u cararay waxay ka mid ahayd baa la yidhi dumarkii maalintaas waxa weeye intii yarayd oo nebiga ku soo haray ayay ka mid ahayd oo waxa weeye aada iyo aada u dadaalaysay iyada oo weliba dagaalantay baa la yidhi iyadu maalintaa oo aada iyo aada u dagaalantay xataa wiilkeedu wuxuu ka warinayaa in wiilkeeda la dhaawacay maalintaa oo nin dhaawacay markaas intay wax ku xidhay dhaawicii oo ay dawaysay ay markaa intay istaagtay iyadu ninkii intay raadsatay ay ninka laftigiisiiba dishay oo waxa weye dhulka dhintay ayay waxa weye taariikhdu ku keenaya marka arrin aada iyo aada u cajiiba ayay samaysay aa la yidhi maalintaa oo waxa weeye aan rag badani samayn karin oo waxa weye maaragtay raggii meesha ay ka wada carareen intay ku soo hartay iyada iyo waxa weeye dhowr nin oo aada u yar ay aada iyo aada u dagaalamaysa sidaa daraaddeed ayaaba nebigu jannada ugu bishaareeyey iyada iyo waxa weeye wanaaggii ay samaynaysay oo waxa weye aada iyo aada cajiib ku ah iyada iyo wiilkeedu ay samaynayeen sidaa daraaddeed buu siira aclaami nubala wuxuu ku warinayaa imaamu dahabi inay ahayd mawdicu takriim waxa weye in aada loo karaameyn jiray gabadha iyo waxa weye maaragtay ay ahayd arrinteedu arrin la karaameyn jiray abubakar iyo cumar iyo kulli ay karaameyn jireen oo gabadh aada iyo aada qiimo leh inay ahayd ayay waxa weeye warinayaan dumarku marka aada bay u badan yihiin oo waxa weeye maalintaas iyo keyrkeedba waxa weeye aada iyo aada u dadaalayey
nasiibadaasaa kamid a umu sulaym baa kamid a bintu milxaan waxaa kaloo kamid a maaragtay sidii inoo soo hormartay caaisha umu cadiya way aad bay u badan yihiin faatima aad iyo aad ayay u fara badan yihiin dumarka wanaagaas aad iyo aad u sameeyey umu sulaym waxaa kaloo dhacday umu sulaym oo ahayd xaaskii abu dalxa inay xataa maalmihii dambe iyaduna dagaalka way ku jirtaa le maalintaa way joogtay maalintii dambe oo waxa weeye ay fatxu makana inay nebiga raacday iyadoo weliba xaamilo ah bal halkan waxaan u keenaynaa markaa gabadhaana qisadeeda umu sulaym inaynan gabadhu odhan caajis inuuna gelin walow ayba xataa xaamilo tahay inay diinta ilaahay u gargaadho wixii ay awoodi kadho safarkaa aad iyo aad u dheer oo madiino laga soo baxayo oo maka la tegayo oo aad iyo aad u dawiilkaa 500 kilomitr la lugeynayo ayay iyadoo xaamilo ah oo weliba sidkeedii soo dhawaaday oo dilihii ugu dambeeye ku jirta ayay weydiisatay ninkeedii ilaa ilaa inay raacdo markaasuu isna u ogolaaday nebigana ay raacday ilaa ay shaahiday oo aragtay maalintii fatxu maka oo waxa weye sanamyadii iyo kulli la baabiinayey oo waxa weye maaragtay ay indheheeda aad iyo aad ugu doogsadeen wa fi saxiixi muslim imaam muslim wuxuu werinaya ana umu sulaym itakadat yowma xunaynin maalintii dambe markii maka laga tegey oo maka la furtay ayaa haddana waxaa la sii aaday xunayn maalintii xunayn marka ayaa waxay samaysatay khinjaran waa baalkan waranka yarka ah oo gacanta lagu qaato oo katiga camala markaasaa abu dalxa arkay markaasuu wuxuu yihi ya rasuul allah haadihi umu sulaym macahaa khinjar u fiirsa buu yihi waran yar bay wadataay markaasuu wuxuu yihi maxaa ku samaynaysa waxay tihi waxaan u samaystay indanaa minii haddii uu ii soo dhawaado axadu min almushrikiin daqartu bihi badna inaan caloosha kaga soo rido ayaan u samaystay marka bal u fiirsa geesinimada ku jirta waa xaamilo waxa weeye bilihii ugu dambeeyey ku jirta dagaalkiiba markii laga noqday intaan madiinada la gaarin baa fooshii qabatay haye haddaba markaasay waxay joogtaa meeshii ugu horeysay oo la dagaalamayey ayay hortaagan tahay oo doonaysaa weliba waxa la wixii usoo dhawaada inay caloosha ka soo rido imaamu muslim baa werinaya waa arrin aad iyo aad u wanaagsan weliba erayaday maalintaa tiri waxaa kamid ahaa markii xunayn laftigeeda ay yaaceen dadkii waxa weye maaragtay reer maka iyo waxa weye dadkii nebiga soo raacay oo waxa weye xadiiثu cahdi ahaa markii ay yaaceen oo carareen waxay ku tiri ya rasuul allah uqtul waxa weye lah gebigoodaba kuwaan waxa weye min dhulaqaa'i maka kuwaan maka naga soo raacay oo iska cararaya iyagoo dhan balaabay tiri maxay qiimaahay leeyihin maxay la cararayaan may dagaalamaan haba la laayo gebigoodaba markaasuu nebigu wuxuu yihi ina allaha qad kafaa wa axsan hadda waxa waa guulaysanay ilaahay baana inagu filaaday marka inaga daa waxba lagu mayme marka waxay khiyada ku jirtay kutusaysaa iyo sida ay waxa weeye u dagaalamayso ilaa nebigu ugu bishaareeyey iljanna oo ay noqotay dumarkii jannada loogu bishaareeyey wuxuu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaan is arkay anoo jannada galay faidaa ana birumayda waa umu sulaym ayaa bintu milxaan baa waa calaamad ay lahayd oo lagu magacaabayo oo jannada ku jirtaan ba arkayba marka waa muttafaqun caleyh marka halkaa waxaad ka garanaysaa wanaaggii ay samayneysay ayaa jannada loogu bishaaray wuxuu kaloo warinayaa sida bukhaariga ay ka warinaya anas bin malik radi allahu canhu nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa uu usoo galay calaa ibnati milxaan waa umu sulaym ayaa nebigu usoo galay nebiguna calayhi salaatu wasalaam ayaa usoo galay oo waxa weeye soo booqday wuxuu yihi markaa anas bin malik radi allahu canhu wuxuu leeyahy dakala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam calaa ibnati milxaan fattakaa cindaha
nebiga ayaa intuu soo galay agteeda markaa meel saa isugu tiiriyey ee xoogaa isku kala bixiyey. markaasuu nebigu xoogaa wuu gamay, wuu saas usoo toosay, markaasuu qoslay. markaasa waxay tiri lima tadxaka ya rasuulallah, maxaa ku qosashay rasuulkeeda, maxaa kaa qosliyey? markaasuu wuxuu yihi naasun min ummati yarkabuuna albaxra alakhdar, ummadayda qaar ka mida ayaa waxay fuuli doonaan badda iyagoo jihaad u socda fii sabiili illah. markaasay waxay tegi mithl muluuk ayuu ku tilmaamay. wuxuu yihi markuu saa yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam oo jihaad ay tegi doonaan oo badda geli doona, ayaa waxay yihi ya rasuul allah udcu llaha, ilaahay ii bari an yajcalanii minhum, inuu iga mid dhigo. markaasuu nabi allahuma ijcalhaa minhum, ilaahu ka mid dhig. uma caada, mar labaad buu nabigu meesha isku tiiriyayo fadaxika, way weydiisay. markaasuu haddana sidii o kale u sheegay, say tii rasuulka ilaah ii bari ilaahay inuu iga mid dhigo. markaasuu wuxuu ku yihi anti min alawaliin, adiga kuwa hore aad ku jirtaa, walasti min alaakhiriin, kuwa dambe kuma jirtid. haddaba marka bishaaradaa nabigu ugu bishaareeyey ibnata milxaan, umu sulaym binti milxaan, waxay taxqiiq noqotay oo la arkay oo si dhaba u dhacday, sida anas ibni malik radi allahu canhu uu leeyahay, waxaa dhacday faqad tazawajat, waxay guursatay cubaada ibna saamit, markii dee ninkeeda dhintay waxay guursatay cubaada. kabacdi ayay waxay samaysay markaa nin mujaahida buu ahaa oo jihaadka iyo waxa weye arrimaha ku jiray. waxay fuuleen badda marka. gabadhii uu qabay mucaawiya, xilligii mucaawiya uu amiirka ahaa, oo gabadhii uu qabay oo binti qarada, ayay waxa weeye la fuushay badda, zawju mucaawiya. baddii markay fuuleen oo halkaa ay mareen oo ninkeediina la socdo, ayay markay tageen qubrus, waa meeshaan hadda waxa weeye macruufka ah oo jasiiradan qubrus turkiga u dhow, halkaa ayaa la furtay oo islaamkii gaaray. markii la furtay oo halkaa la qabsaday oo islaameen oo halkaa saxaabada ay gaareen, ayay soo noqodkii laga soo bilaamayey oo laga soo noqonayey ayay daabadeedii ka dhacday. markaasay qoorta ka jabtay oo waxa weeye ku tumatay, famaatat, way dhimatay. ilaa iyo hadda waxay leeyihiin culimmadu wa qabruhaa waxa weeye fii qubrus ila alyawm waxa weeye waa mashhuur, qabrigeedu waa la yaqaanaa, iyada oo ay macruuf ku tahay oo dadku yidhaahdaan haadaa qabru lmar'ati asaalixa, oo waxa weye gabadhii saalixada ahayd oo wanaagsanayd qabrigeedii weeye, oo saxaabiyadda ahayd. waa gabadh macruufa oo waa la yaqaanaa ilaa iyo hadda qabrigeeda halkaasay ku dhimatay. marka waxay noqotay iyaduna shahiida, waayo nebigaaba ugu sii bishaareeyey inay halkaa ku shahiidi doonto. waxaa kaloo ka mid a gabdhaha aad iyo aad uga qayb qaatay, aad iyo aad bay u fara badan yihiin, ma soo koobi karno, aad bay u fara badan yihiin. umu ayman baa ka mid ah, gabadhii waxa weeye nabiga calayhi salaatu salaam xamaaran jirtay, iyada laftigeedu arrimahaasay aad iyo aad uga qayb qaadan jirtay. waxaa kaloo ka mid ah kabshata binti raafic alansaariya, umu sacd ibn macaad radia allahu canhuma ayaa ka mida fii gazwati uxud iyo keyrkeedba ayay ka qeyb gashay baa la yidhi, oo maaragtay ay ka qeyb qaadanaysay. waxaa kaloo ka mid ah furaycata binti malik iyo maaragtay umu hishaam binti xarisa ayaa ka mid ah. aad iyo aad bay u fara badan yihiin, taariikhulislaamna aad iyo aad bay uga buuxaan gabdhaha muslimiinta oo waxa weeye diinta usoo nusreeyey oo waxa weeye usoo dadaalay diinta, ilaa ay ka qayb galeen qaarkood baycat ridwan, laqad radia allahu can lmu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajara. dumar badan baa ka qayb galay oo waxa weeye halkaana ku jiray. wa minhuna waxaa ka mida um lmundir salma binti qays alati shahidat baycat ridwan wa shahidat qablaha baycat almu'minaat.
aad iyo aad marka ayay u fara badan yihiin. waxaa kaloo ka mid ah asmaa bintu yaziid ibn sakan alansaariya, waqad shaarakat, waxay kala qayb gashay nabiga calayhi salaatu wasalaam fii gazwati khandaq ayay ka qayb gashay, oo waxa weye iyaduna ay arrintaa ka qayb qaadatay. aad iyo aad bay marka u fara badan yihiin gabdhaha muslimaadka oo waxa weye arrintaas oo dhan ka soo wada qayb qaatay. intaasoo dhan marka iyo keyrkoodba waxay ku boorinayaan gabadha muslimadda in ay ka qayb qaadato waxa weye addacwatu ila allah. wuxuu leeyahay ibn kathir raximah llah fi lbidaaya walnihaaya, waqad qaatala nisaau lmuslimiin fi hada alyowm, waa maalintii lala dagaalamayay rum yowma yarmuk, waa maalintii khatarta ahayd oo waxa weeye aad iyo aad dadka faraha badan ay waxa weeye dagaal aad iyo aad khatara uu dhacayey. maalintaa waxaa ka qayb galay buu yihi dumar aad u fara badan, wa qataluu khalqan kahiira min arum, rag badan bay laayeen oo ay aad iyo aad ay u laayeen oo ruum ahaa. waxay kala samaynayeen, waxaada moodaa markaad halkaas fiirinaysid gabdhaha iyo ragga gabdhahaada geesisanba. wuxuu leeyahay wa kunna yadribna, waxay garaacayeen oo dhagax ka badinayeen oo ciid ku sayrinayeen kuwa muslimiinta ah. haddii ay soo cararaan intay ka hor yimaadaan bay wejiga ciid kaga sooyeen, xaggee u cararaysaan, noqda oo dagaalama oo waxa weeye dagaalka gala, xaggaad usoo socotaan. iyagaaba ka jeesisanaa waxa weeye rag badan. wy ibn kathir ayaa saana kusoo guurinaya kitaabkiisa albidaaya walnihaaya. mawqif marka aad iyo aad u cajiiba ayay gabdhahaasi maalintaana muujiyeen yowma yarmuk, maalintii la dagaalamayey rum. wa fi hada alyowm, maalinta noocaasa waxaa ka mid ah gabdhaha aad iyo aad cajiibka u ahaa asmaa bintu yaziid, ayaa aad iyo aad arrin cajiiba u samaysay, ilaada ay leeyihiin oo waxa weye sida xaafid ibn xajar iyo ay leeyihiin umu salama alansaariya buu yihi ay asmaa bintu yaziid ibn sakan shaydati yarmuk, maalintaasay xaadirtay buu yihi. wa qatalat yowmaidin, maalintaa waxay dishay 9 min aruum, 9 nin ayay dishay oo maalintaa ay dagaalkii ku dishay. waxayna ahayd gabar aad iyo aad u cajiiba oo dagaalka iyadu baashartaba. laakiin sida cumuumka oo waxa weeye taariikhdoo dhan kutusayso, gabdhuhu dagaalka haddii ay markaa dee laysdhex galo oo waxa weye dagaalkii dee uu ballaarto waa gaar, laakiin asalkooda iyaga jihaadkooda waxa weeye inay waxa weye dhaawaca iyo waxyaalaha kala qabtaan, laakiin inay iyagu toos u galaan dagaalka lama rabo. waayo sababtu waxa weeye rag ayaa meesha dagaalamaya oo dhibaata ka imaanaysa haddii ay maaragtay dhex galaan, ilaa daruuro wixii daruuraa mooye. haddaba khulaasadu waxa weeye safaxaadkaas aynu akrinay waxay kutusayaan min taariikhi alislaam, taariikhda gabadha muslimadda ah waxa weeye ay ka qoreen waxa weeye mu'arikhiintu inay diintooda usoo gargaari jidhay oo ay adduunkoo dhan ka hormarin jidhay diinteeda, sida ay nusratu diin illah, diinta ilahay say ugu gargaari lahayd. haddaba gabar walba oo muslimada oo ilaahay ka cabsanaysa waxaa la rabaa inay ku dadaasho sida ay diinteeda ugu gargaari lahayd, oo waxa weeye ay diintan mas-uuliyad baa ka saaran, rag iyo dumarba mas-uuliyad baa ka saaran in ay diinta u gargaaraan, inay waxa weye ka qayb qaadato addacwa ila allah, inay ilmaheeda ka bilowdo, inay waxa weeye ku dadaasho siday ilmaheeda u badbaadin lahayd, reerkeeda u badbaadin lahayd, nafteeda u badbaadin lahayd, inay ku dadaasho ayaa la rabaa. akhawaati fillah, marka usul xasana ayaa idinku sugan gabdhahaas faraha badan oo ka mid ahaa gabdhihii saxaabiyaadka ahaa. kuwii taabiciintiina haddaynu dhex gallo aad iyo aad bay inoogu dheeraanaysaa. marka insha allahu tabaaraka watacaala intaa ayaan kusoo gebagabeynayaa. waxaana leeyahay allihii subxaana qaadirka ahaa hayna garansiiyo kulligeen in aynu diinteenna u nusrayno u gargaarno. rabbigii subxaana qaadirka ahana haynagu sugo, hana inagu dilo, hana inagu soo saaro
inagoo waxa weeye diintan kuna dhimanayna waxa weye una dadaalayna. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.